banaan ku soo baxnay saldhigga banaankiisa kulta waxaan dhahnay xaaladda horta gabadhaas soo ogaano markay soo kacdo gabadhaas ay soo ficnaatana aan la socodsiinay inaan warqadii si idin u soo qaadnay kulta iyadu waxay ka dhehayso haddii ninkaas loo soo qabanayo haddii kaleba horta iyadii qusaysaay bal horta iyada aan u laabano horta haddii Soomaalida Malaysia ka soo horjeestaan taas ma u maleynayo in dowladda Malaysia ay ka soo horjeesanayso haddii aan soo laabto yarka dhibka geystay Cabdullaahi la yiraahdo Cabdullaahi muxuu ahaa maxay ka aaminsan Soomaalida ku nool Malaysia qof nooco ayuu ahaa diinta uga baxay anigoo ma aragtay sidaas uu adkaay sax runtii horta ma aragtay aniga diinta horta aad baan u jeclahay laakiin waxaa jirtay soo daawateenba Cabdullaahi wuxuu ahaa horta qof diinta muslimka marra ka baxay taageerahayga waa sida qoyskayga waxay ii dhiirigeliyaan sida military waxay ila taliyaan sida aan u daalin ila soo rabkayga wax ka baa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa salaam dhammaan ummadda Soomaaliyeed markaa joogtiin soo dhawaad barnaamijka cusubta soo dhaw subscribe noo saar aad iyo aad waxaan rabaa arrintan baryahan dambe socota ayaaniinta loo geystay inaan horta ka hadlo waxaan kala socdo iyo xaalku siduu yahay iyo ahaantii sida maaragtay wax u dhaceen horta habeenada kamida qabaarihii waqtiga afurka ayaa waxa soo wacay walaalka Xuseen Beebe wuxuu ugu dhahay Astibraaniyo dhibaa dhacay gabaraba dib loo geystay walaalo soo orod kaale oo nacaawi xaafadda hortayaan taaganahay ani meeshaan ugu imaaday marka uu imaaday waxaan ugu tagay gabadhii oo gacanta laga haayo gabdhii kale meeshay ku oynayaan waqtigaas taa waqti qof waxa la weydiin karo maxaa dhacay aad dhihi kartid ma ahan aad baan u siinahay dhibaatada gabadha loo geystay iyo dhiig ka socda gacanta ru'aantii waan qaaday waxaan geeyey istaal Kuala Lumpur markii istaalka aan geynay oo gaariga aan ka dejinay ay gabadhii meesha ku dhacday istaalka hortiisa ru'aantii waana la caawiyey kalkaarisooyin dhakhaatiir waana loo soo baxay gabadhii gudaha la geliyey 5 daqiiqo bacdi ayaa waxaa noo imaaday dhakhaatiirtii waxay dhaheen gabadha waxaan u baahanahay baasaboorkeedii anaga waan isweydiinay qof baasaboorka wada ma jiraa cid wada ma laha lahay kulitaba qofkii gaariga wato anigu ahaa waxaan soo baxnay aniga Xuseen Beebe waxaan tagnay gurigeygii baasaboorkii aan loo soo dejiyey waa soo qaadnay markaan soo qaadnay ayaan meel dhaxan ka soo marayna waxaan soo wacay wiilkii dhibaatadan geystay Cabdullaahi la dhahay telefoonka Xuseen Beebe xusbin baa ku dhahay saacada noo farbal wuxuu dhahay aan dhageysto wuxuu dhahay Xuseen balooran gabadhii ka waran saytay xaaladeeda ka waran u dhahay Xuseen wuxuu ugu jawaabay maxaa gabadha dhibaatadan ugu geystay maxay sababto wuxuu dhahay nin gabadha horta dad saaxiibana waa ahayn dad wax ka dhaxeeyaan xiriir ka dhaxeeyaan waan ahayn hal sano oo silsoo waxyaalo noocaas u dhahay runtii spent Allahu a'lam gabadha hadda xaalkeeda ka waran gabadhii waa xaalad mid ku jirta la istaal joogtaa wuxuu dhahay niyow ina gabadha xaaladeeda soo gabagabina rabnaa lacag istaalkeeda dhiibaa rabaa wax kasta dhameeyaa rabaa markuu saas dhahay wadan wuxuu noo sii raacsiiyey saldhigga ina aadaysiina maqlay laakiin ani mar hore aaday warqadiina waa soo qaatay haddana waa haystaa markuu saas dhahan telefoonka nagu jaray anaga waa sii baxnay meel dhexe waxaan ugu sii sugayay Munir akhaa waa sii qaadnay waxaan tagnay istaalkii baasaboorkii aan dhiibnay wixii dhan soo qoray waa la soo diiwaan geliyey cabaar ka bacdi markii aan saacado joognay ayaa dhakhaatiirtii noo imaadeen waxay dhaheen waxaan u baahanahay inaad booliiska tagtiin xaafadiina ku yaala saldhigga booliiska aad soo qaadiin report booliis noo keentiin report booliiskaas wax kasta informationkii dhib kusoo u dhacay xaafadda degantiin adreeska blogga degantiin waxyaalahaas dhan ku soo qora noo keena waxaan ku soo baxnay aniga Cimraan iyo gabadha guriga deganeed Nasteexo saddexna soo baxnay waxaan tagnay saldhigga Satabaag waxaan joognay muddo 2 saacadood meeshaas alxamdulillah ilaahay wuu noo soo dhameeyey 2 saac ka bacdi sidoo kale waxaan soo siiyeen warqad CID ay dhaheen warqadaas kiiskiina waxa loo wareejiyey arunta CID meeshaas taga kiiskiina meeshaas ka furta saas waa insha Allah marka banaan ku soo baxnay saldhigga banaankiisa kulta waxaan dhahnay xaaladda horta gabadhaas soo ogaano markii soo kacdo gabadhaas ay soo ficnaatana aan la socodsiinay inaan warqadii si idin u soo qaadnay kulta iyadu waxay ka dhehayso haddii ninkaas loo soo qabanayo haddii kaleba horta iyadii qusaysaay bal horta iyada aan u laabano waan soo baxnay
markaas 8 saac bidnimo waaye waxaan imaanay isbitaalkii dhakhaatiirtii cabaarka bacdii anagoo markaas 2 saacadood kala joogna ay waxayna dhaheen alxamdulilah gabadhaad waa fiican tahay meeshii gacanta aan waa tolnay haddana waa kacaysan kartiin isbitaalkan waa laga saari karaa ru'aan arrin aad u farxad badan ahayd waan soo qaadnay gabadha xaafadeedaan keenay markaas ka bacdiina waxaan sii qaaday walaalkay Muniir Aqaa isagana waxaan geeyay xaafadiisii horta gabadha intaan ka ogaa waa intaas waxaan kala ogaa oo hadda ay ii soo sheegay bas hadalka igu sheegay wuxuu ahaa in gabadha aan soo dhameynay warqadii CID-da oo ninkaas CID-da lala tigsado ka bacdiina maxkamad ka bacdiina xabsi dalaq horta arrintaasay ahayd haddii aan soo laabto yarka dhibka geystay Cabdullaahi la yiraahdo Cabdullaahi muxuu ahaa maxay ka aaminsan Soomaalida ku nool Malaysia qof nooco ayuu ahaa horta Cabdullaahi waan kana bal la soo daawado maxaa diinta uga baxay anigoo ma aragtay sidaas uu adkaay runtii horta ma aragtay aniga diinta horta aad baan u jeclahay laakiin waxaa jirtay qaybo badan oo aanan aniga fahamsanayn oo aniga aanan ogeyn baa ku jirtay diinta waxyaabo badan aniga markaan ogaaday waa ma aragtay ka baxay saa soo daawateenba Cabdullaahi wuxuu ahaa horta qof diinta muslimka marra ka baxay sanad ka hor social media soo istaagay dhahay diinta islaamka ka baxay isagoo Malaysia ku sugan waqtigaas uu diinta ka baxayna ma uga bixin eridan Soomaalida isagoo Soomaali ka cabsanaya kulta wuu tagay wuu cararay wuxuu degay xaafadaha magaalada hoose ayuu degay meelahaas isagoo joogo diinta ka soo baxay ru'aantii wuxuu ahaa qof la takooray wuxuu ahaa qof Soomaalida dhan ay wada arkeen wuxuu ahaa qof Soomaalida dhammaan Malaysia ku nool ay wada og yihiin marka qofka noocaas ah oo aan muslim ahayn ma jiraa qof uga heelin kara gabar yar oo dhibaataysan oo dib u geystay oo dhiigeeda dhulku daadiyay ma u maleynaa inay dhacayso xataa si haddii dhacayso oo dad Soomaali iska dhib badan yihiin oo arrin dad noocaas la helo ma dhacaysaa in Malaysia ay gabadhaas kiiskeeda ay tudisiiso oo macnaha ciidana ay ugu soo horjeestaan qabiil ahaan maya Malaysia waa meel wadan dawlad leh wadan sharci leh kala dambeyn leh haddana dumarka ay xuquuq weyn ku leeyihiin oo qof dumara aan lagu xadgudbi karin qofku xadgudbi kara ma jirto meeshaas waxa iga cadaatay marka gabadhaas walaashay ah inaysan warqadaas CID-da aysan geenin dikolta waa la soo qaban lahaa ninkaas oo la xir lahaa gudaha lagu taxaabi lahaa si kastay aataba aniga ma u maleynayo in lagu soo horjeesanayo arrin qabiil arrin dhibaato sababtoo arrintan Soomaali ma soo dhexgelin Soomaalida ma aysan imaanin wax Soomaaliyo soo dhexgaleen horta aan ma maqlin mana arkin oo markaas ka socda laba qabiil macnaha inkastoo cidii ay family yihiin oo hal cid ay isla yihiin gabadhii wiilkaba oo dad family isku dhow ay yihiin laakiin wax soo dhexgalay wax arrintooda ka soo hadlo Malaysia jooga horta mana arkin mana maqlin sida ani ogahay ru'aantii waxa jirta bariyahan dambe ayaa arkay in social media la soo geliyay iyadoo markaas gabadhii ay leedahay qabiil ahaan baa laga soo horjeestay dadkii Malaysia dhan baa laga soo horjeestay dadkii Malaysia ma aragtay waa dad waxay noqdeen qabiil iga soo horjeesto dad caawiya ma arkin horta haddii Soomaalida Malaysia ka soo horjeestaan taas ma u maleynayo in dawladda Malaysia ay ka soo horjeesanayso haddii aad rabtid inaad wiilkaas xirtid kulutaba sharciga Malaysia ayaad marsayn lahayd walaashii cid maanta uu ku hoos gaban karana oo Malaysia joogto ama Kuala Lumpurna horta ma jirto sababtoo ah qofkaas cid soo dhaweysanaysa ma jirto waayo waa qof mar hore diinta ka baxay waa qof gaaloobay waa qof aan aqoon badeeyay aragtay yani waa qof dadka muslimiinta soo caynaa markuu social media soo galo intaas markaan ugu soo tagno walaashii waxay dhahday 4 qof ama 5 qof camal ay caawisay oo Malaysia ku nool ay soo tirisay kultuba aniga waxaan ka mid ah dadkaas caawiyay wax macnaana male in la xusin laakiin waxaan ka mid ahaa dadkii caawiyay waxa kale oo dhici karta si dadkaas dad badan oo inay caawiyeen gabadhaas oo wax kasta la jeclaa inay jiraan sida ana camala oo markaas ayadana ay xusin waa dhici karta marka walaashay waxaan leeyahay horta social media gar meel uu jiro ma ahan
meel gar lagu gooyana ma ahan laba siyaabood ba arrinta noqday anigu reer Malaysia nahay wanaagaaga waa jecelnahay cid inuu ku dhibaataysana raali kama nihin shalayto dhaawacaan ku soo gaaray dhaawacii haddii aad leedahay aniga ninkan dhiig buu ii geystay dhibaato ii geystay halaga xaal mariyo waxa waaye de kultaba Soomaalidu way joogaane bal cidda ka soo horjeesta aragno haddii aad leedahayna de kulta wixii gacanay ahayd dhiig waa iga baxay haddana waa liisoo talo waana caafimaad qaba waana cafiye ilaahay baan ku daayay idin waa meeshii haddii aad leedahay kiisaan furanayo si iriideen ku laabanayana de kultuba aniga hadda reer Malaysia nahay qaasatan dhalinyarada reer Malaysia qaasatan youtuberada qaasatan dhalinyarada qaasatan asjibrani waxaan diyaar kula nahay inaan ku caawino stiil oo aan kula garab istaagno wax kasto aad jeceshahay been ma aha yarka inuu dhibaatadaas ku geystay been ma aha inuu dhiiga dhulku daadiyay been ma ahan inaad maaragtay aad ka xumaatay oo qofkaas ku galay laakiin arintu waxay ahayd waqtigaasba inaad CD markaa wada warqadiisa inaad soo gabagabaysid ma dhicin soo maaha waqtigan xaadirka hadda la joogo arinta social media soo gashay walaashii laba siyaabood bay mid noqonay haddii aad leedahay ninkaas dad baa ii qariyay oo xaafada ku qariyay oo qabiil iiga soo horjeestana horta Malaysia markaa ka soo horjeesanayso oo dawladda Malaysia iyada ayaa wadanka iska leh qaladaadna ma ogola taas waa mid haddii adig aad leedahay ninkii waa cafiyo waa iska cafiyeen waa ahlan wa sahlan hadda waa caafimaad qabtaa caafimaadkaaga waa taam haddii aad leedahay warnimiyo Soomaali weyn kiiska ila xaliyana dee anaku diyaaran kula nahay inaan kula xalinay bal hadda qaabkee rabtaa markii laga soo tago social media marka alcamum inaan ku sii dheeraado mar rabo inta soo gabagabeynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.